بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسنا caaw wuxuu ku saabsan yahay alfawzu fi lxayaa, guusha ama the success nolosha qofka bini aadamka goormaa la odhan karaa wuu guulaystay, ama guusha dhabta ee la gaadho nolosha inta la noolya maxay tahay. ereyga alfawz afka carbeed waa najaatun min marhuub wa taxsiilu marguub bay yidhahdaan. waa waxaad ka cabsanaysay oo aad ka nabad gasho iyo waxaad raadcaynaysay hunguraynaysay oo aad ku guulaysato ama aada hesho. qofka bini aadamka ahi sidiisaba min fitrati waa jecel yahay inuu guulaysto iyo inuu muuqdo, laakiin waxaa isweydiinta leh guusha dhabta ahi waa tee, maxaa lagu qiyaasaa? miqyaas ma leeday wax lagu qiimeeyo ama miisaan ama miqyaas oo lagu garan karo qofku inuu guulaystay iyo inaanu guulaysanin maxay tahay? alfawzu fi lxayaa baynu dhih, noloshu waa intee? maxaynu ka rumaysannay? noloshu ma 60-70 sano ee halkan la joogaba, mise waa adduun iyo aakhiro la isku daro? waxyaabahaynu ku qiimeyn karno inuu qofku guulaystay iyo inaanu guulaysani maxaa ka mid ah? ma maalba, ma sulto iyo magac iyo maamuus iyo authority power inuu helaba? maxaa u ah sal ee aynu ku qiimeynaa inaynu idhaahno qofkani wuu guulaystay ama nolosha success buu ka gaadhay, liibaan buu gaadhay? qiimeyntaasi sax noqon mayso ilaa aynu isla garano alxayaa lafteeda, nolosha iyo hadafkeeda. why we are living, maxaynu u noolay? what is the purpose of life? nolosha tan maxay tahay? danta laga leeyay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay? rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysano fawska. ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kullu nafsin daa'iqat اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz wama alxayaaةu اddunya ila mataacu اlguruur. ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy naf waliba way geeriyoonaysaa. noloshu tan la joogaa wax sii soconaya maaha. mahmaa kaana ladayk min maalin wa sulطatin wa nicmatin waa tegaysaa baa la yidhi. wax kastoo agtaada yaalla, nooc kastaba uu yahay, waad ka tegaysaa, waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay. wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama, waxaa laydin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyahy maalinta qiyaamaha. adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin, waa lagu dhadhansiiyey, wax weyn maaha. laakiin wixii aada shaqaysatay cimrigaaga aada ku bixisay, insaanku ra'su maalihi waa sanawaadkuu nool yahay. wixii aada shaqaysatay waxaa lagu oofinaya, lagu dhammaystiraya aakhira baa rabbi leeyahy subxaanah wa tacaala yowma alqiyaama. sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan eray yahay, faman zuxzixa can الnaar wa udkhila aljanna faqad faaz. ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janno la geliyaa, kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan. markaas aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaaةu اddunyaa ilaa mataacu اlguruur. nolosha adduunna ma aha mid kadsani waxuu birhbidhsado mooyaane. yacni nolosha adduunyo waa mataac, laakiin yay mataacu tahay ilmaqruur, ku la kadiyey, ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan nafmooda. walidaalika baa aayaddaa ku xigta fii suurati ali cimraan, aayadda 108
sideetan iyo shanaad aayadda ku xigtaa ilaahay wuxuu leeyahy latublawunna fii amwaalikum waanfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wamin aladiina ashrakuu adan kahiira wain tasbiruu watataquu faina dalika min casmi lumuur. yani waxaa la tilmaamayaa alxayaati اdunyaa macnaheeda rasmigi inuu yahay alibtilaa. walidalika ayuha alikhwa, kow markaynu wax qiimeynayno waxaynu leenahay the whole life aan eegno, noloshoo dhan. adduunku waa qeyb yaroo ka mida noloshaada. maraaxil bay noloshaadu maraysaa. maraad caloosha hooyadaa ku jirtay, maraad yareydoo soo koraysay, maraad geeriyootay, maraad xabaal ku jirto, mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo, iyo da-ind halkay ku gabagaboobaysoo ah laba meeloodoo bini aadamka loo qaybinayo meesha aad ka tegayso. ma jannaad aadaysaa mise naar baad aadaysaa? waa inaynu fahnaa markaa noloshan aynu joogno maxay macno samaysaa. qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa noloshan inay tahay imtixaan, waa mowducu ibtilaa. wax kasta oo nolosha intaad joogto kugu soo baxaana waa su-aal jawaabteeda la sugaya waxaad ku qorto whatsoever. haddaad caafimaad qabto waa su-aal, haddaad xanuunsanayso waa su-aal, haddaad xoola haysato waa su-aal, haddaad faqri ku jirto waa su-aal. whatsoever, wax kasta oo nolosha kula kulma waa beyj nolosha ka mid ah, laakiin ah imtixaan xagga rabbi ka yimi oo la eegaya waxaad kaga jawaabto. mid walibana jawaab bay leedahay, mid walibana jawaab bay leedahay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy tabaaraka aladii biyadihi اlmulk wahuwa calى kuli shayin qadiir aladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. waxaa laynoo tilmaamay geerida iyo nolosha iyo waxaan oo dhami macnaha qure looga dan leeyay inuu tahay liyabluwakum ayukum axsanu camala, in laydin tajribeeyo, laydin itixaamo. weliba waa tajriba experiencekeedii aadam lagu soo bilaabay. aadam cid ka horeyso bini aadam uu ku daydaa ma jirin. isaga tajribo gaara la siiyo, inta janno la geeyaa la yidhi geedka ha cunin. waayo isagu cid hore oo uu ka tajribo qaataa ma jirin. innagase ilaahay qur-aanka taariikhdii reer nebi aadam oo dhan buu inooga warramay. tajaarib alinsaaniya kullaha macmal, waa laab. bini aadamka taariikhdiisu waa laabkii insaanka. qof walba wixii uu la kulmay ama wixii uu nolosha soo maray. ilaahay markaa wuxuu ina leeyahy subxaanaه wa tacaala war adduunku inaa jacalnaa maa cala aradi ziinatan laha. dhulka waxa kor saaran oo dhan waa qurxun baan dhulka uga dhigay baa ilaahay leeyahy. oo maxaa looga dhigay? linabluwahum ayuhum axsanu camala, inaan dadka itixaamo kooda camal fiican baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala. idan ayuha alikhwa, qur-aan aada u tiro badan baynu akhri karaynaa hada lmowduucun ka warramaya. afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha waanakum ilayna laa turjacuun ayaxsabu linsaanu an yutraka suda. bini aadamku ma in sidiisan lagu daynayaa buu u malaynayaa baa ilahay yihi subxaanaه wa tacaala, intuu iska noolaado bes aan jawaab dambe su-aal dambe ka dambaynayn miyuu filayaabaa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala? maya weeyaan. idan kow ugu horeyn waxaan leenahay nolosha tan aynu joogno dhammaanteedba halka waxaynu u joognaa waxa weeyaan waa in layna itixaamo. maxaa laynagu itixaamayaa? bitakaaliif, wixii layna faray. wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbudu. cibaadadu waa takliif, waa wixii lagugu itixaamayay. kaa samee, kaa ha samaynin, sidaa rabbigaa u caabud, sidaa ha u caabudin, waxaa cun, waxaa waa kaa mamnuuc. waa takaaliif. takaaliiftu waa shay kulfa ku jirto, waa shay imtixaan oo lagugu eegayo jawaabta aad ka bixinaysaa wuxuu tahay. marka ilaahay wuxuu leeyahy nolosha gebigeedba waxaan idin keena in laydin itixaamo. the purpose of life waa intaa. waxa lagugu itixaamayaana waa maxay? ee ugu horeeya waa takaaliif ilxayaa, waa cibaada ugu horeysa. waayo insaanku bifitratihi bay yidhaahdaan ayuu caabidiyey. laakiin waxaa lagugu itixaamayaa liman tuwajih alcibaadata ilayh. cibaadada ayaad uga imanaysaa. insaanku bifitrati, waa kii taarikhyahankii greega plutarch muxuu lahaa, wuxuu leeyahy taarikhda bini aadamka intii la qodee la baadhay lama haya buu leeyahy. waa la helay magaalo
aan dugsiyo iskuulla lahayn, waa la hayaa magaalo aan qusuur lahayn, waa la hayaa magaalo aan xusuun iyo meel ciidanku ku gabado lahayn, laakiin taarikhda lama haya buu leeyahy magaalo aan macbad lahayn fi taarikh اlinsaaniya. insaanka markaa waxay dhahaan waa min طabcihi ayay tahay maxay inuu wax caabudo. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dadka badh afarayta man itakhada ilaahahu hawaah, ma aragta ka waran baa rabbi leeyahy kuwan ilaahooda ka dhigtay waxay caabudayaan waxay naftoodu doonto, naftiisa waxa ay doontee kastuu ka dhigtay. ayuha alikhwa, markaa waxaynu leenahay noloshan aynu joogno iyadu guul kale ma leh. noloshan aynu joogno waa imtixaan, imtixaankaasina jawaabtiisa rasmiga ah adduunka bacdan minha in lagu horumariyo waa laga yaabaa, nooc min alciqaabaat inay kugu dhacaan waa suurtagal, nooc min annicma inaad hesho waa suurtagal, laakiin waa a bit of it, ma aha jawaabtii rasmigayd. wainamaa tuwafawna baa la yidhi ujuurakum yowma alqiyaama, waxbaa lagaa siiyey dunida intaad joogtay, positive iyo negative kuu doonaba ha ahaado, laakiin iyadoo rasmiya waxaad jawaabta helaysaa baa la yidhi maxay? yowma alqiyaama. walidalik miqyaasku waxaynu leenahay guusha rasmiga ahi ma aha hebel baa lacag helay, ma aha hebel baa caruur badan dhalay, ma aha hebel baa madaxweyniye magac iyo maamuus helay, waxaasoo dhan maaha. xabaasha markaad tagta cidi ku weydiin mayso war dunidii maxaad kaga timi, maxaa xoolo jiray, maxaad dad iyo caruur ka timi, maxaad magac iyo maamuus ka timi. waxaa lagu weydiinayaa as'ilo maalintii dhabarka aadamaad ku jirtay lagu weydiiya, alastu birabbikum baa maalintaa ilaahay ku yidhi. halkan markaad tagtana faman rabbuk baa lagu weydiinaya, huwiyada identity, duni cusub baad timi, tii hore waad ka timi, identity kaarhkaaga lagaa rabaa inaad dhiibato. identitygaaga waa saddexdan su-aalood waxaad kaga jawaabto. man rabbuk wamaa nabiyuk wamaa diinuk ayaa huwiya ku ah, kaas baa ku ah idgaaga rasmiga ah. jawaabtaad ka bixiso ayuunbaad wixii ka dambeeyana ku meel maraysa. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qad aflaxa man zakaaha, waxa guulaystay liibaanay man zakaaha, naftan qofka tahira, qofka nadiifiya ee xumaha ka nadiifiya. waman yutic illaaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima, alle iyo rasuulkiisa ciddii raacda ayaa guulaysatay guul weyn baa rabbi leeyay subxaana wa tacaala. bini aadamku markuu joogo waxaa laga yaabaa mawaasiintaa ka gedisan in dad badan ay haystaan. qur-aankana ilaahay inoogu tilmaamo. rabbi qur-aanka wuxuu kaga waramayaa nin qaaruun la odhan jiray oo maalqabeen ahaa, aada u xoolo badnaa. qur-aanku inooma sheegin xoolihiisii ee wuxuu sheegay furayaasha qasnadihiisa inaan koox bini aadami qaadi karin. maaha qasnada waxa ku jira, waa furayaasheeda baa la leeyahay cusba min annaas baan qaadi karin. waxaa la yidhi maalin buu soo baxay dadka isagoo ziinadiisii iyo wixiisii dhoolato samaynaya, macrad uu ku soo bandhigayo maalkiisi iyo wuxuu haystuu sameeyey. basharkii markay arkeen, ilaahay wuxuu yihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya. wasfiga kuwan la siiyey waa wasfi qura, waa sifo qura. qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya, kuwii nolosha adduun doonayay waxay yidhaahdeen baa ilaahay yidhi yaa layta lana midla maa uutiya qaaruunu inahu laduu xadin cadiim. yaa leyt, laytani, alla jeclaan lahaaya bay leeyihiin inaanu helno waxa qaaruun la siiyey oo kale. waxaa ninkani dhaqaale iyo macradkan uu soo bandhigay ee uu ku soo bandhigay dhaqaalihiisii iyo wixii uu haystay iyo ziinadiisii, jeclaan lahaayeen bay leeyihiin waxaan oo kale anan inaanu helno. inahu laduu xadin cadiim bay dhahen, kani waa mid nasiib weyn, adduunka wuxuu ka soo gaadhay nasiib buu aada u weyn. kuwaasi waa group bini aadamka ka mid ah oo waxay wax ku qiimeynayaan uu yahay how many dollars you have, jeebkaaga maxaa ku jira, dabaqadeebaad bulshada kaga jirtaa, bilyaneero mise milyaneero mise masaakiinta. dabaqaadka la sheegay o dhan waxa weeyaan jeebkaaga maxaa ku jira. adiga laf ahaan qiimeyn ma lihid, laakiin waxaad qiimo ku leedahay maadadaad haysataa inta ay leeg tahay.
hadday badan tahay group baad ka tirsantahay, hadday yar tahay group baad ka tirsantahay. walidalik baa kooxdani ilaahay wuxuu ku tilmaamay waa kuwa adduunka doonaya. qaala aladiina yuriiduun alxayaata addunya. group kale ilaahay tilmaamay. group kale waa maxaa sifada ilaahay siiyey uu yahay. waxaa lagu tilmaamay inay indheergarad yihiin, aqoon-yahan yihiin. ilaahay wuxuu leeyahay waqaala aladiina uutuu lcilm. kuwii hore cilmi laguma sifayna waxa lagu sifeeyey adduun jacayl. qolada tan ilaahay wuxuu leeyahay waqaala aladiina uutuu lcilm. kuwii aqoonta la siiyey iyagu waxay leeyihiin waylakum hawaabu llahi khayru liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila asaabiruun. waryaa hoog baa idin sugnaaday bay leeyihiin hawaabu llahi khayru liman aaman. ilaahay hawaabkiisa iyo jannadiisa iyo abaalmarkiisa ayaa ka khayr badan, laakiin ayuu u khayr badan yahay liman aamana wacamila saalixa. ciddii iimaan iyo camal saalixa hesha walaa yulaqaaha ila saabiruun inahu laduu xadan cadiim bay kuwii hore yidhaahdeen. qoladanina waxay leeyihiin waxaan si aanu sheegayno lama kulmaan dad nolosha sabra mooyaane, dad nolosha adkaysi u leh oo mabaadi'da iyo waxay rumaysay inuu adkaysta mooyaane. idan basharka ilaahay wuxuu tilmaamay adduunka jooga laba nadro ama laba aragtiyood inay kala leeyihiin. qolo adduunyadu la qiimo weyn tahay, qolada adduunyadu la qiimo weyntahay waxay wax ku qiimeynayeen markaa inta uu haysto. waa ninkii hebel ahaa way u gasho waa guulaystay baa la leeyahy. muxuu ku guulaystay? xaran iyo xalaal waxay doontaba ha noqotee kuus lacag u helay. mar hadduu kuus lacaga helay waxa weeyaan waa qof guulaystay cindahum. ninkii madaxweynuu noqday wallaahi wuxuu wadaba siyaasaddii waa ku guulaystayo president madaxweynenimuu gaadhay, waxay u arkaan qof guulaystay. nadarada sharciga marka la eego waa qof su-aasha badsaday. marka naftaada qura aakhire lagu weydiiyo iyo ummad meel joogta marka lagu weydiiyo war maxaad u qabatay, waa laba su-aalooda kala tiro badan. waxaad kororsatay haddaad ku guulaysato nin raga noqotid. imaamka caadilka waxaa la yidhi aakhiro marka dadku meeluu hadhsadaba aan lahaynin carshuraxmaan buu hadhsanayaa, laakiin waa qaliilun maahum. inta ku guulaysataa waa in yar. tajribada adag inta gasho ee guulaysataa. walidalik bini aadamku adduunka arkaya. qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya baa ilaha yidhi miisaanku wax ku qiimeynayo dham waa intan. marka hadafkaa si kasta uu ku gaadho wuu samaynaya. kursiga siyaasiga si kasta uu ku helo wuu samaynaya. lacagta si kasta uu kusoo helo wuu samaynaya. waayo iyadaa hadaf u ah, iyadaa goolkaa uu noloshaba ka leeyahy, iyaduu cimrigiisa dhaafsanaya. kuwo kalena waxaa la yidhi aqoon baa la siiyey, waxay u arkaan ilaahay wuxuu bixiyaa khayrka ah inuu ka fadli badan yahay waxaan oo dhan. nabigu calayhi salaatu wasalaam qadaayaadkan si uu saxaabada ugu sharxo xadiidkan xalay tilmaamaya saxiixinka ku yaala. nin baa soo maray dabeetana wuxuu yidhi war ninkan ka warrama, maa ra'yuka fi hada. nin la fadhiyo yidhi ninkaas ka warram. wuxuu yidhi waa rajul min ashraafi innaas. ninkani waa odayada magaaladu ka tirsan yihi duqayda. hada wallahi xariyun in khataba an yunkax. waa nin mudan buu yidhi haddii uu gabadh ku weydiisto in gabadh la siiyo, haddii uu erge kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo, waa waayeel. riwaayadka bukhaarina waxay tilmaameen waa in qaala yusmac. hadduu hadlana golahu ka hadlayana waa nin la dhegeysto aan laga dareerin. nabigu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam, waxba kuma darin. mid kalaa soo maro wuxuu ku yidhi balkana ka warran, maa ra'yuka fi hada. saxaabiga la fadhiyu yidhi balkana hadda ka warran. waxay idhahdeen kani waa rajul min fuqaraa'i lmuslimiin, hada xariyun in khataba an laa yunkax wain shafaca an laa yushafac wain qaala an laa yusmac. ninkani bay idhahdeen dee waa miskiin aan waxba haysan. haddii uu gabadh ku weydiistana cidina gabadh siin mayso. haddii uu erge kuugu yimaadana cidna ergadiisa aqbali mayso. haddii uu hadlana warkiisa cidi u dhegtaagi mayso, dhegaysan mayso. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi isagoo raba miisaanka bini aadamka lagu qiimeeyo noloshooda inuu baro, hada khayrun min mil'i lardi mila hada buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. mila hada kan aada idinku waxba agtiina ka ahayn alla agtiisa wuxuu kaga fadli badan yahay dhulkan muggi. dhulka basharka qaadaa waa imse? waa un wax ilaahay garanayo. waa balaayiin min annaas.
dhulkan muggii oo nooca kana buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idinka idinla weyni waxaa isku dhaama ninkan qurhe keliya sidaa ogeed buu nebigu wuxuu lahaa ruba ashcatha madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi laa bara ilaahay wuxuu inoo sheegayaa marka subxaanahu wa tacaala bini aadamka min طabcihi inay tahay adduun jacaylka waayo waa meesha la isku itixaamaya haddii lagu keeno adigoon adduun bar rabin haddana lagu idhaha wa lagugu itixaamaya dee meedaa rabayba maxaa lagugu itixaamay waxaa lagugu abuuray qadiyadda in adduunka aad jeceshahay waa min طabci linsaan laakiin waxaa loogu talagalay inaad caqliga isticmaasho aad controli kartid oad ku controlsho maxaa saxa maxaa qalada ee waan jeclay uun زين للناس حب الشهوات ولذلك فإلهي وحليه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا بن آدم كوكواني با إلهي يدي تندق دكتا بدن لي جعليين سيدة بن آدمكو تاد قفتر هذا شامبغلوي مكابات غادنا سامسي سنة كمر كل ما هذا كنا لبا كنا وعشان هذا يسيبه لي sanadkaa garmaayo insaanku sidiisaba waa mustacjil tahoruu jecel yahay ilaahay wuxuu yidhi tan degdegtaa baa jeceshiin waxaase ilowdeen baa ilaahay leeyahy maalin culus kala bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira idan ayuha alikhwa noloshan adduunka aynu isku wada haysanno waxaan colaad bini aadamka dhexdiisa taagani in badan oo ka midi waa qadaaya dunawiya ee dil leh ee dhac leh ee boob leh ee gumaysi leh ee xaasidnimo leh ee hagardaamo leh mashaakilkan bini aadamka intiisa badan dhex yaala waa qadiya adduun ilahayna wuxuu leeyay wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur noloshani wax kalaba ma ahee waxay bedhbedh u tahay wax uu ku mataacsado kii kadsanaa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala إلهنا وحينا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور غير نبي آدم ور إلهي وحكو يبوها يا وعد ربي سبحانه وتعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا نولش الدنيا ييد كدني ولا يغرنكم بالله الغرور أيها الأحبة adduunku intuu aakhire ka yihi haddaad wakti ahaan u eegto qur-aanku wuxuu tilmaamayaa dadku aakhire markay yimaadaan in su-aasha la weydiin doono aakhire marka la isugu yimaado waxaa la isweydiinayaa kam labistum fi lardi cadada siniin war dunidii imse sanadood baad soo joogteen laakiin wixii aad joogto o dhami markan way kula yaraanayaan قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم مالين أما مالين بركيت بانو تشوقني بيلينا فاسأل العادين بل كوي واحترين ايه هلا ويديو أنا قوي حيانو سو تشوقني أما مالين بيهيد أما مالين بركيت إلهي وحوق جوابي قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون هرتا وحير باي تشوقتين بالي هذا وحق لقرانيسان وحبضان ما يحين marka aakhira iyo waxaan dambeeya loo eego wax yar bay ahayd meesha wixii ay soo joogteen baa ilaahay leeyahy qur-aanku wuxuu ka warramayaa guulaha bini aadamku uu dunida jecel yahay ayaa ilaahay sukaan dhinac dhigay iyo guusha aakhiro iyadoo mu'miniinta lala hadlayaa ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وركوا إيمانك لغيها ليو تجارة يباع مشتر أقول ليس نسان وعذابك إذن كبد بادين نسان ما يدين تصيابا ربي سبحانه وتعالى مركي إلا ينوشي قينا إنه إلهي الرمينه ورسول كيس الرمينه ودين تيس الدفاع عنه ودر الرو oo naf iyo maalba u bixino ayaa ilaahay wuxuu inoo sheegay abaalmarkaynu markaa helaynaa wuxuu yahay abaalmarka ilaahay wuxuu ka dhigay yaghfir lakum dhunuubakum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن
ilaahay dembigiinuu dhaafayaa baa la yidhi. Waa marka koowaad. waa marka labaad ee jannooyin hoostooda webiyaal dareerayaan baa laydin geyn, iyo dhul masaakiin guryo wanaagsan baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala oo jannooyinka nagaadiga ku yaala. intaa markii ilaahay sifeeyey ayuu wuxuu yidhi dhalika alfawzu alcadiim. dalik waa ismu ishaara lilbaciid lagu tilmaamo. kaas baa la yidhi, yacni waxaa la tilmaamayaa shaygan lagu sheegayaa qiimaha uu leeyahay intuu leegyay. ilaahay wuxuu yihi warkaa aan idiin sheegay waa guushii weyneyd, guusha cadiimka ah weeyaan. markii intaa fawska cadiimkaa lagu sheegaa waxaa muuminiinta kaloo loo sheegay wa ukhraa tuxibuunaha nasrun min allahi wa fatxun qariib. mid kaloo aad jeceshihiinna waa laydin siin oo ah inaad dunida guulaysataan, cadowgiin iyo waxayna ka guulaysataan, dhul furataan. kuwaana dadka muuminiintaana u bishaaray baa layidhi. kuwa kan laguma darin wadalika alfawz alcadiim. inta aakhire unbaa lagu sifeeyey maxay? dalika alfawz alcadiim. tan kale waxaa la yidhi ukhraa tuxibuunaha, mid kaloo ay idinku jeceshihiin. inaad dunida cadowga ka guulaysataan iyo inaad meel furataan waa waxoogaa yaroo kale ay idinku jeceshihiin oo laydinku daray baa la yidhi. laakiin asalka fawska cadiimka ahi waa maxay? waa ka aakhiro. qur-aanku wuxuu kaloo ka waramayaa dad mu'miniina oo iyagu nasrigan adduunkee la tilmaamo iyo dhul la furtiyo waxaa may heline, waa la laayey. weliba si caadiya looma diline, toorjar bay ku dhinteen. weliba toorjarkaa ah ka ugu xun, waa la gubay iyagoo nool. wa fii suurati alburuuj ilaahay wuxuu ka waramayaa قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. دول مؤمنين ونمن قالي أي كحقبتين الله ينيان. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحو شرحي مسلم ككوية لي نبقى قرادتك الرب وشيكتو ماشي تشوغي إن ودات سحر الله ووتي قبوبي dabeetana uu yihi war wiil yaroo aqoon-yahan maskax fiican ii keeno aan cilmigan sixirka baro. wiil yar baa la keenay. wiilkii yaraa oo sixiroolaa wuxu dhiga ayuu yarku wuxuu sii maraa nin iska cibaadaysto wadaadoo meel sawmaco gaara iska jooga. wadaadkiibaa isna u yeedhay oo uu la yaro fadhiistaa. labada madrasadood ba yarku u dhigtaa, tan gaalkana wuu soo dhigtaa, tan wadaadkana wuu sii dhigtaa. waxaa raad badan ku samaysay tii wadaadka kan. markii dambena wuxuu tijaabiyey. ilaahay wuxuu weydiistay labadan nin malka saxa ah. bahal baa dhulkii yimid, dadku ka cabsadeen, dhagax buu qaatay. ilaahayow hadduu wadaadka arrinkiisu ka saxsan yahay buu yihi ninkaa kale wuxuu sheegayo dhagaxaa ku dil. bahalkii baa dhintay, dhagaxaa la ku dilay. wiilkii yaraa warkiisii baa faafay. boqorka nin xaashidiisii ka mid ah, wasaradiisi iyo dadkii ag joogaya ayaa indhabeelay. dabeetana waxaa la yidhi wiil yaroo ducadiisu baanay dhulka u dhicin baa magaalada joogo, hadduu kuu duceeyo indhaha kuu baxaya. ninkii hadiyaduu soo qaado wuu keenay. wuxuu yihi waxaan rabaa inaad indhaha ii bixiso. wuxuu yihi anigu indhaha ma bixiyo, laakiin haddaad rabto ilaahay baad rumayn, anna ilaahay baan kuu baryi. sidii buu yeelay. ilaahay buu rumeeyey, isna ilaahay buu u baryey. ilaahay baa indhihii u fiiqa, waa u baxeen. wiilkii yaraa warkiisii baa sii faafay. calaa kullin akhiiran waxay gaadhay ninkii markuu boqorkiisii iyo meeshiisii ku noqday buu yihi yaa indhaha kuu bixiyo rabbigay buu yihi. wahallaka rabbun hayri buu yihi, oo midaan aniga ahaynoo rabbigoo kalaad rumaysan tahay. warku halkaasu isla joogo. bini aadamku markuu kibro meel daran buu gaadhaa. ma cid aan aniga ahaynoo kaloo rabbiyaad rumaysantay? hayo anigii adigaba allah inoo rabbiya buu yihi. waa la toorjargareeyey. wiilkii yaraa buu sheegay. wiilkii baa la toorjargareeyey. wadaadkii buu sheegay. wadaadkan baa waxba ka dambeeyaa la yidhi isaga horta ha laga takhaluso. wadaadkii waa la dilay. sidii kolba mid loo dilay wiilkii yaraa akhirkii isna waa la dilay. qisada waxaan uga socdaa tafsiilkeeda kale ma rabo. magaaladuu amray in godod laga qodo. gododkii baa la qoday. dabeetana wuxuu yihi dab ku shida. waa lagu shiday. madaxdiibaa kuraasa loo dhigo, waa soo fadhiisteen.
waa dadka torturekiisa dad ku raaxaystaa jira. marka ninkan inuu wax cadaabayo qura wax dilayo qura maaha ee waa usoo daawasho tegey. romanskii iyo idinkii arki jiray in bini aadam iyo libaax inta la isku daro magaalo dhami daawato. dadkii baa la gubay, xabad xabad loogu guray. qof dumara oo ilmo yar sida taas soo taagtay, dadkii way diideen inay rabbigood ka noqdaan, si baana lagu gubay. ilmaheedii yaraa bay u naxday. ilaahay baa ilmaheedii yaraa ka hadliyo wuxuu ku yidhi, hooyay xaq baad ku taagantay, sabir. dabeetana islaantiina waa adkaysatay, waa lagu wada guray, waa gubteen. ilaahay duulkaasuu inooga waramaya, in aladiina fatanuu lmu'miniina waalmu'minaat uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu lxariiq. kuwii cadaabay baa la yidhi fitneeyey dadka muuminiinta ee aan ka toobad keenin. ilaahay naxariistiisa u fiirso. kuwa waxaa sameeyo weli toobad u ogolyihi ee aan ka toobad keenin baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala, waxay iyaguna leeyihiin cadaab waxguba. kuwii dadka gubay iyana aakhire waa la gubi baa la yidhi. kuwii la gubay xaalkooda waa maxay? in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat, kuwii iimaanka laga helaya camalka suuban baa ilaahay yidhi, lahum jannaat tajri min taxtiha alanhaaru dalika alfawz lkabiir baa ilaahay yidhi. kuwanina waxay leeyihiin beero ama jannooyin hoostooda webiyaal dareerayaan. dalika alfawz lkabiir. qur-aanku masaladaynu ka warramaynaa alfawz bay ahayd. masaladani qur-aanka kelimatu lfaws iyo mushtaqaadkeedu 31 meelood bay qur-aanka kaga soo aroortay. 16 ka mid ah waa dalika alfawz oo sifa raacsiisan tahay. 4 ka midina waa alfaa'izuun, 2 ka midina waa afcaal. inta ugu badani akhiray ka warramaysa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay kuwii dunida intay dagaalameen, jihaatameen, guulaysteen, ciddii ay ishayeen ilaahay uga gargaaray, waxaa la yidhi jannooyin baa leedihin, adduunkana waxoogaa jeceshiin oo kalea laydin siiyey. wixii ay aakhiro lahayeenna waxaa lagu sheegay dalika alfawz alcadiim. kaasaa guusha rasmiga ee weyn baa ilaahay yidhi. kuwan la gubayna ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay guulaysteen iyana. binadarina waaba la gubay. innagu markaynu eegno waa dad la gubay oo laga xoog batay oo la ciilay, laakiin ilaahay wuxuu leey way guulaysteen. waxaana lagu tilmaamay guushoodii dalika alfawz alkabiir. qolana cadiim baa lagu sifeeyey fawskoodii, qolana waxa lagu sifeeyey maxay? alfawz alkabiir. waa meesha quray qur-aankana kaga soo aroortay. ayuha alaxiba, marka waxaynu u baahanay aragtida ah war maxaa sharcigu guulu yaqaanaa inaynu fahmno. walidalik baa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xaadiista saxiixiisa ay tilmaamayso. anas ibnu malik baa wuxuu leeyahay, niman baa nebiga u yimi qabaa'il carbeed, dabeetana waxay idhahdeen waxaan rabnaa inaad nagu darto dad qur-aanka iyo sunnada noo dhiga. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam 70 nin oo saxaabadiisii masaajidka joogi jirtay buu ku daray oo alquraa la odhan jiray. niman bay ahaayeen baa la yidhaahdaa habeenkiina qur-aanka daraaseeya, maalintiina masaajidka biyaha usoo dhaamiya oo intay dabadda u baxaan xaabo keena oo gada oo dadkan ahlu sufee masaajidka jooga wax siiya. maalintiina dadka foqorada iyo masaakiinta ay caawiyaan iyo dadka weysaysanaya waxay u baahan yihiin. habeenkiina qur-aankay daraaseen. waa niman cibaado u baxay. anas ibnu malik wuxuu leeyahay abtigay baa ku jiray buu leeyahay xaraam la yidhaahdo. nimankaas uu nebigu diray, qoladii carbeed way khiyaamaysay. nebi maxamed baa la khiyaameynaya. 70 raggiisii ka mid a la laayay. 2 nin meelahaasoo neef baxsadiyo wax ku maqnaabaa ka nabad galay. wixii kaloo dhan waa la laayay. nimankan intaan la layn markii la khiyaameynayey, nimankii yidhi waanu islaamaynaa, dad diintana baraanu rabnaa, ninkii uu odayga ahaabaa waraaq loogu dhiibay. waraaqdii uu sido xaraam ibnu milxaan ayuu is yidhi ninkii madaxdaa u dhiib. kii madaxdaana wuxuu yihi markuu ninkani meesha soo fadhiisto xagga dambe midow ka maro waranka geli. ergadana lama laayo, laakiin intay xagga dambe ka mareenba markuu waraaqdii u dhiibay ayay waran geliyeen.
saxaabigii baa dhawaaqay waranka la geliyay. muxuu ku dhawaaqayaa? wuxuu leeyahay ereyga sunnada ku soo arooray oo xadiidku bukhaari iyo muslimba uu ku yaala, fuztu warabbi lkacba buu yidhi, waan guulaystay allaan ku dhaartay buu leeyahay. bimanduurina nin erga ahaa iyo miskiin oo la khiyaameeyey oo weliba aan loo badrheedhine qadri lagu dilayo inuu yidhaahdo tollaay waa lay dhacay ama waa lay khiyaameeyey ama waa lay mantaqa caadiga ee bini aadamka caadiga filaya. laakiin tarbiyadii nebi maxamed uu dadkan siiyey waxay sheegaysaa ninka kani inuu leeyahay fuztu warabbi lkacba, rabbiga kacbadan ku dhaartay waan guulaystay buu leeyahay. waayo wuxuu u arkayaa hadafkiisii xaqiiqiga ah inuu gaadhay walow la dilay, oo ah inuu janno galaba hadaf u ahayd, kiina inuu helay buu u arkayaa. ayuha alikhwa, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada markaa ku rabeeyey mafaahiimtu inay isbedesho. innaga waxaad moodaa mafaahiimteennoo dhami waxay ku qiimaysan tahay maxaa iga soo gelaya. yani mafaahiimteennu waxay ku qiimaysan tahay maxay? lacag, maxaan helayaa? waxaa laga yaabaa ninka masaajidka 2 casho yaro xaadxaadhaa inuu idhahdo de maalmahanba waan xaadhaya miyaan aniga mushaarka lay qoraynin. waayo wuxuu rajaynayey inuu dunida ku qaato wuxuu doonayey. qof kasta oo weliba dee dadkan westranka la noolina iyaga maskaxdii ku saabsanayd tatawuc malaayada halkan wayeen, waa uun shaqadu qabanayo inuu soo ego teebaa lacag badan un mooyaane. wadaadka qur-aanka dhigaya hadduu is idhahdo war malaa sabtida inaad warehouseka qabataaba ka lacag badan iskaga tegaya. waayo wuxuu qiimeynaya saacadda waxa soo gelaysa. haddii miisaanku uu noocaa noqdo, uma jeeda inaan culamadiina maago, laakiin mawaasiintu hadday noqoto maxaan helayaa adduunka. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baycat alcaqaba athaaniya markay u yimaadeen xajka saxaaba ugu timi oo islaamay oo noqday oo mar labaad soo noqday, ayay nebiga waxay usoo bandhigeen inuu soo hijroodo. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, war waxaa naftiina iyo maalkiina iyo caruurtiinaba ka dhicisaan ma iga dhicinaysaan? de anuu mabaadi' baan wataa, waa mushkilad baa la kulmi doontaan, laakiin ma tihiin dad sidaa igu qaadanaya, sidaa ma ku aqbalaysaan inaan idinku imaado? dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ansaartii la hadlaysaa wada hadashay. nin ka mida baa wuxuu ihi waryaadheen, war ballanka ha gelina iska hubiya, war haddaa hadhow ka bixi doontaan ballanka marka carab oo dhami dhan idinka soo wada jeesato idinla dagaalanto, war imikaa fusxa haysataan oo aan cidina idin qasbine ballanka ha isku gelina. haddii kalese waxay idhahdeen inan yar baa tee ka banne. saasaanu heshiiskugula gallay bay yidhahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam. ee famaa lana, maxaanu anana leenahay? mantaqa maadigii muxuu odhan lahaa? wuxuu odhan lahaa dee dowlad baan dhisaya, waa kaase wasiiradaa leediin dee haddaynu guulaysano. ama inuu yidhaahdo dee aniga dabadaybaa madaxda noqonaysaan, meeshiina caasimadii baa yeelanaysaan, aniga dabadaybaa madaxda noqonaysaan. haddii kale waxay isweydiin le maxay dee u dhimanayaan? naf iyo maalba maxay u bixinayaan? wuxuu nebi maxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, lakum ljanna. ma odhanin boos baan idin siinayaa, xoolaa helaysaan, wax adduunaba kalama hadal. waxaasoo dhan markaa samaysaane naf iyo maalba ii hurtaan ay difaacdaan ee diintani guulaysato, lakum ljanna buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxaan idinkula heshiinaya waxa weeyaan in rabbi idinkana janno idin siiyo. yacni saxaabada tan mafaahiimtoodu nebi maxamed bedelay calayhi salaatu wasalaam. waxay guusha u arkayeen baa isbedelay, waxay hadafkay nolosha ka lahayeen baa isbedelay. hadduu hadafkaad nolosha ka leedahay yahay caruur dhal, xoogaa lacaga xooji, daatitid intaasu ku dhan yihi. haddaad nolosha hadaf ka fog ka leedahayna ahdaafta sokoo dhan waxaad ku qiimeynaysaa maxay ka goynayaan hadafkii sare. waad shaqaysan, laakiin waxaad isweydiin shaqadani aakhire maxay ka goynaysaa? ma xalaalba ma xaaraanba?
salaad maxay ka goynaysaa? ma salaaday kuu diidaysaa mise? laakiin marka aan aakhiradu fekerkeedu badnayn waxaa la odhanayaa sheekh dee shaqaan soo helo ninkiina wuu diiday inaan salaadihii tukada, maxaa la yeelaa? marka miisaanku waxa weeyaan mushaharka iyo salaada kee laga tagaa. hadday labadaasi kuu siman yihiin still waad rugsantay. nabi maxamed saxaabada wuxuu weydiinaya inay naf waayaan oo xoolo waayaan oo u dhintaan oo difaacaan. lamana odhan madax baa noqonaysaan, xoolaa laydin siinaya, dowladnimaa helaysaan, wax kale looma sheegin. lakum uljanna buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. idan miisaanka qofka muslimka ahi adduunka maxaan helayaa maaha waxa weeyaan aakhira maxaan helayaa. adduunku waa secondary maaha primarygiisii, maaha shay goolkii koowaad ee uu fakerayay maaha. wuxuu adduunka haysto dhan wuxuu rabaa inuu ku gaadho jannada uu raadinaya, aakhirada uu raadinaya. hadday lacag tahay inuu iyada ku janno galo, hadday caqli iyo xoog iyo cilmi tahay inuu isaga jannada ku galaa buu doonaya. idan qofka muslimkii waxaan adduunka yaaloo dhan wuxuu arkaa inay wasiilo u noqoto, laakiin hadafka uu rabo inuu xaqiijiyaa waa maxay? waa inuu janno galo. ilaahay saa daraaddeed buu qur-aanka wuxuu ku leeyahy ina hada lahuwa alfawz alcadiim limithli hada falyacmal ilcaamiluun baa ilahay yidhi. inta janno laga waramay baa waxaa la yidhi ina hada lahuwa alfawz alcadiim. warkaas ba ah baa ilaahay leeyay guusha weyn, guuli waa taa. limithli hada falyacmal ilcaamiluun baa ilahay yidhi. ciddii shaqaysanaysaa tahaas ha u shaqaysato. qofka bini aadamka ahi caqli dheeraada, aqoon dheeraada, aftahanimo dheeraada, dhaqaalo dheeraada waa laga yaabaa. dadka ilaahay ma simin, waxbaad dheertay bini aadamka kala suurtagala. laakiin waxaa loo baahan yahay waxa aad dheer tahay inaad ku gadato jannada rabbi subxaana wa tacaala. sidaa awgeed waxaynu leenahay ayuha alikhwa, jamiic alambiyaa way guulaysteen, macaana inagoo og qaar in nolosha lagu dilay. bale culamaai taariikh waxay sheegaan ambiya inta madaxa laga gooyo dumar dhila ah loo hadiyeeyey madaxiisi. fariiqan taqtuluun, ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya nebiyadii kooxna fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun baa ilahay yidhi. kooxna waa beeniyeen. laqad akhadnaa miithaaqa bani israa'iila waarsalnaa ilayhim rusula kulamaa jaءahum rasuulu bima laa tahwa anfusuhum fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun baa ilahay yidhi. rususha qaarna waa beeniye, qaarna waa laaya. fariiq baa lagu sheegay nebiyada la laayay. wamaca kuli dalik waxaan leenahay nebi aan guulaysani ma jiro, nebi aan guulaysani ma jiro. wadalika alfawz alkabiir. sidaa awgeed waktigoo kooban qisaska ambiyadoo dhan 2 qiso quran ku koobaya. ilaahay qur-aanka wuxuu kaga waramay nebi sulaymaan iyo nebi ayuub. waxaa la yidhaha alcasru adahabi libani israa'iil bay ku tilmaama. waa golden agekii reer banu israa'iil. waa labadaa nebi markay talinayeen boqortooyo weyn oo xoolo leh oo cilmi leh oo aqoon leh oo diin le bay ahayd. sulaymaan ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inuu rabbi weydiistay inta imtixaanna uu galay oo uu dareemay imtixaankii hore inaanu sidii uu rabay male ugu guulaysan. fardihii iyo wixii uu lahaa inii axbabtu xuba fardahan ka jeclaysta can dikri rabbi ee intuu laayay dabeetana wuxuu ilaahay weydiistay rabbi kfir lii wahab lii mulka laa yanbagii liaxada min bacdi inaka anta alwahaab. ilaa uu dembigaa horena iga dhaaf, waxaanada siisaa mulki aan aniga dabaday ciddaba u cuntamin. ilaahay wuxuu yihi fasakharnaa lahu riix tajri biamrihi rukhaan xayثu asaab والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامننا وامسك بغير حساب. waxaa la siiyey boqortooyo ballaaran oo jin leh oo insi leh oo aqoon-yahano leh. aqoon-yahankii ilaahay qur-aan ku tilmaamayo alladii uuti lcilm, kii carshu balqiis intuu ka qaaday xaggee yaman ayuu falastiin geeyey milliseconds. ilbiriqsiga wax ka yar baan ku keenayaa buu yidhi, waanu ku keenay. inagu nowadays malaa uun codkunbaa imika suurtagal iyo wixii la mida in milliseconds meel kale lagu geeyo. telefoonkan yar adaa ku hadlaysaan ee meel heblaayo ka baxaya milliseconds. laakiin
material koobkan sidii codka loo malaaso isagoo signala la diro xagga kale laga receive gareeyo technology-ga maanta ma hayo laakiin nebi sulaymaan qoladii la joogtay waxaa la sheegay aqoontaasi xataa inay taallay nebi sulaymaan waxaa laynoo sheegay inuu shimbire afgaranayay oo quraanjo ku qoslay oo afgaranayay oo aqoon badani agtiisa inay taallay waxaa tiro badanna inuu haystay waxaa laynoo sheegay inuu boqortooyooyin dhan islaamiyey oo balqiis oo dhan iyo dowladdeedii iyo waxeediiba oo kuwii diinta qaatay saa qur-aanku ka warramayo ilaahay nebigaa markuu ammaanayay waxaa la yidhi wamaa khalaqna alsamaaءa waalarda wamaa baynahumaa baatila dalika danu aladiina kafaruu fawaylu liladiina kafaruu min annaar am najcalu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kalmufsidiina fi lard am najcalu lmuttaqiina kalfujaar كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إلهي أنتو صوت المامي دادكو إنانا السنين مفسدين تي صالحين تو إنانا يسكتشرين متقين تي فجار تي إنانا إلهي أكتسا كم دهين أي إلهي وحكوت المامي نبي سليمان ووهبنا لداود سليمان نبي داود وحنو سيني با إلهي يدي نبي سليمان محا إلهي كسيفي نعم العبد إنه أواب أدون إنه أفعنا ومن نقش بدنها بغرطوية دا سيدي للربي إنه رقمي قرآنكو وحكالوك ورمي نبي كالي وأن قرآنكو وحبك الشيئين إلا يينو بكي موياني nebi ayuub qur-aanka meel kastood qisadiisa aragto wax kaloo nebigaa laga sheegay laa dowlad uu qabtay walaa meel uu xoojiyey walaa jihaad wax kaloo qur-aanku ka sheegay ma jirto hal masale mooyaane waa bukooday sunnaduna waxay tilmaamaysaa bukaankaasi 18 sano inuu u jiifay dabeetana dad oo dham iskaga tageen dabeetana uu sabray ilaahay isaga markuu ammaanayay maxaa lagu sifeeyey إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إلهي إنا وجدناه صابرا وحنو هالليبا ليني نبي أيوب إساقو متصبر رياء دبتنا إلهي وحكسي في نعم العبد أدونك يوفي عناويان إنه أواب إذن أيها الإخوة أدونك مركز لتشوفه نولاش بيجك كوكو صوب حوا جواب تاتك بحيسو haddii beejka mas-uuliyaadka iyo barwaaqada iyo xoolaha iyo waxaasi kugu soo baxaan waa jawaabtaad bixiso sulaymaan muxuu lahaa markuu arkay falamaa ra'aahu mustaqiran cindahu qaala hada min fadli rabbi liyabluwanii aashkuru am akfur waman shakara fainamaa yashkuru linafsi waman kafara faina rabbi haniyun kariim markii carshigii laga keenay balqiisi hortiisa lasoo dhigay mu odhanin waa technology-ga iyo horumarka waddanka aanu gaadhsiinay iyo sidaanu u xoogaysanay wuxuu leeyahy kani waa ilaahay dheeraadkiisa iyo liyabluwani waa la itixaamayaa buu leeyahy waxa kani waa imtixaan oo maxaa laygu itixaamayaa aashkuru am akfuru miyaan ilaahay u mahad celinayaa mise waan dafirayaa nicmadiisii idan haddii xoola lagu siiyo waxaa lagu eegayaa saad yeesho haddii caafimaad lagu siiyo waxaa lagu eegayaa saad yeesho dadku inta badan caafimaadka marka la waayaa unbaa isaga la moodaa inuu fiicnaa laakiin weli ma aragtay subax ninka soo toosoo yidhaahda alxamdulilah waa caafimaad qaba maxaa nimca igu soo hoyatay maya ka bilyaneerka ahi laakiin haddii uu xanuunsado la yidhaha wadnaha iyo keliyaha lagaa bedelaya kan dhakhtarka dunida ugu dambe waxaad xoolahaysaba waad keenaysaa laakiin waa lagu daweynaya waxba uu siisanaya wuxuu rabaa inuu caafimaado laakiin kan caafimaadka haysta marka aan mawaasiintu qaldantay hadduu xoogaa shilimaada hore u waayo wuxuu leeyahay maxaan ku hayaa caafimaadka markaasuu saa kama maan waraacane qiimo ugulama fadhido yani insaanku nicmooyinka ilaahay bixiyaa way tiro badan yihiin laakiin bini aadamku inta maqan buu mar kasta tiriyaa qof kasta oo kuu yimaada way yartay qofku yidhaahda maanta khayr baan soo helay waxba isoo galay laakiin saaxiibadaa markay wax soo galaan waa iska aamusayaan ama noloshu isku toosto laakiin marka dhibtu timaado aan moogtay maanta waxay qabsaday buu ku leeyahay wixii balaa buu sheegayaa waa min tabci linsaan inta ka maqan buu sheegaa bini aadamku inta uu hayo inta badan
iyadu war la sheega maaha, wax laga warramo maaha. idan haddaad nicmo haysato oo bejka caafimaadka, magaca, maamuuska, dhaqaaluhu kugu soo baxo, waa bej imtixaan oo la eegaya maxaad kaga jawaabtay. haddii bejka rabshadu kugu soo baxana isna waa imtixaan kalow, inaad baqato, in lagu cabsiyo, in lagaa xoog bato, inaad caafimaad beesho, in dhibi ku qabsato, inaad gaajooto, waa bej kaloo nolosha ka mid ah. isna waxaa la eegayaa miyaad sabraysaa mise waad argagaxaysaa, maxaad yeelaysaa, rabbi adigoo baahan ma caabudaysaa mise waxaad odhanaysaa maxaan cibaadaystaa, awr ma dhaansadadii baad odhan doontaa. yacni waxay ku xidhan tahay meesha aada istaagto. walidaalik baa ilaahay labada nebiba wuxuu tilmaamayaa labaduba inay guulaysteen, labaduba ammaanan yihiin. midna muxuu ku guulaystay, wuu bukoodo, wuu sabray, dabeetana waxaa la yidhi nicma alcabdu inahu awaab. kii boqorka iyo maamulka iyo siyaasadda iyo xoolaha iyo wuxuu dhan ku guulaystay perfectka ka noqdayna isna waxaa la yidhi nicma alcabdu inahu awaab. idan adduunku waxaa lagu qiimeeyaa waa daacada ilaahay intaad u jirto. fawska iyo guusha aynu raadinaynana waa ka. bilaahi calaykum waxaad qiimaysaa jannada qofka ugu meel yar. wuxuu nabi maxamed tilmaamay qolo jahanamiyiin la yidhaahdo, qolo towxiid ku dhimatay laakiin macaasidoodu badnayd oo lasoo cadaabay, oo cadaabka u tegay ase cuquuba, xabsi loo diray ah. ma garanayna intay ku jireen, ma sanad, ma milyan, ma ka badan, allahu aclam, oo ka soo baxay, oo marka dambe jannada la geynayo, oo moodaya jannadii dee dadkii hore o dhan baa galo way buuxsantay, dabeetana la odhanayo tabani, oo wax sheeganaya, dabeetana waxaa lagu odhanayaa fa ina laka midlahu wa cashrata amhaalihi. in leeg adduunkii baa la iskuba haystay, muggii iyo tobanlaabkii baad leedahay, waa qofka ugu boos yar jannada. qiimaheedana waxaa lagu tilmaamay dee meel ushan yare fardaa lagu garaaco la dhigto ayaa waxay ka khayr badan tahay adduunka iyo waxa yaaloo dhan. marka qualitygeeda la eego, quantityna waa taa la tilmaamay ninka u boos yar inuu leeyahay adduunkan tobanlaabkii. adduunkan tobanlaabkii inaad khasaarto iyo inaad shaqo khasaarto ka war. adduunkan tobanlaabkii inaad khasaarto iyo noloshan yare adduun wax ka mid oo birbidha inaad khasaarto, wax isu dhow maaha. walidaalika ayuha alikhwa, waxaan leenahay qur-aanka waxaa ku soo arooray 16 jeer baa daalika alfawz ay soo aroortay, oo 13 jeer ay tahay daalika alfawz alcadiim, hal jeerna ay tahay daalika alfawz alkabiir, 2 jeerna ay tahay daalika alfawz almubiin. saddexdaas sifo iyadoo ku sifaysan alcadiim, alkabiir, almubiin ayaa qur-aan ku soo arooray. intuba akhira ka warramayaan. adduunka guulahan yaryare la gaadho wax ka warramaya kuma jiraan. 4 jeer baa qur-aanka waxaa ku soo arooray alfaa'izuun. 4 jeer ee qur-aanka faa'izuunta ay ku soo aroortayba في سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون بإلهي. كوي إيمانك إيه جهادك إيه هجرة إيه وحاصل الله قال أولئك هم الفائزون بإلهي كت المام. في سورة المؤمنون إلهي وحلي إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إلهي سبحانه وتعالى موضع أفراد في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. مش أفرادنا سورة الحشر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. إذا قرآن كو عدو فائزين كو شيغا يوردن وأعماش آخرة دتك الليمي. قرآن كو وحا فوز عظيم الشيغا يوردن وآخرة دتك قوليستي. ميزان كفوز كريلا هي وحوين يدي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأحبة،
khusraan dhammaantii yani faws dhammaantii waa meesha uu nebigu leeyay haddii la tago calayhi salaatu wasalaam lama gaboobo oo lama dhinto oo lama bukoodo oo lama warwaro oo lama waxa dunida naqiisa jirto oo dhan dunida haddaad wax hesho dhibaatadeedana waad arkaysaa mid wax haysto meeluu ku cunaba la-baad arki mid wax haysto oo caafimaad waayo roodhi qalalan ka cunayaad arki mid wax haysto oo kuba wareero habeen iyo maalinba soo jeedo marka baa degayo mid baa sii socda ka warramayaad arki dadka wax haysta iyaga 7 morning bay shaqada soo galaan 11 o'clock at nightna way ka baxaan si ooyadu iyaga ugu dambeeya wax soo galaya wax ka baxaba dadka wax helaa inta badan naqaa'isteedana way qabaan nicmadanna dunidu nuqsaan bay wadataa tan aakhira se nuqsaanba ma wadataa la yidhi iyadu wax haba yaraatee dhib u keena male khasaara wuxuu ku dhacay baa ilaahay yidhi qul ina alkhaasiriina inagu hebel baa tijaarada ka khasaartay hebel baa caruurtii ka dhimatay hebel baa xaaskii gaari ka jeedhay hebel inaga khasaaraha dunida aynu tirina waa inaha laakiin ilaahay wuxuyna leeyahay qul ina alkhaasiriin الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين بإلهي dadka khasaare waa kuwa aakhiro naf iyo ehelba waayey baa la yidhi eedee naar galay alaa daalika huwa alkhusraanu lmubiin baa ilaha yidhi war hooyay kaas baa maxay khasaarihii caddaa dadkaas naaftiisa marka ilaahay ka warramayana qaar ba ku tilmaamay hadday waxoogaa helaana iska tugtukada haddii noloshu yaraa cidhiidhi noqotona xagga kale u baxa ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين dadka waxaa ka mida baa ilaahay yidhi mid hadduu waxoogaa khayr iyo nimco helana iska xasilo cibaadada iska ogolaada waxaa kaloo ka mida baa mid haddii ay dhib yari ku dhacdana xagga kale u jeesta kaasi baa ilaahay yidhi khasira addunya walaakhira addunya aakhira waa kaasi hoog dalika huwa alkhusraan almubiin ayuha alaxiba waqtigii salaadii baa dhow darsigan oo dhami wuxuu ku kooban yahay weer qura oo ah adduunkan inaynu qiimihiisa si fiican u fahmno wuxuu yahayna garanno noloshu waxay macnaa ku samaynayso adduunkan mahmaa taala alcumr waa tegaysaa waa muddo yar waxa aad joogayso waxaa dadku inta uu kontonka ka yar yahayna waa intaasaan jirayo intaas iyo waa dafirayo markuu kontonka dhaafana xaggan baan jirayda inta badan ma tiriye talow maxaa ka hadhayduu isweydiiyaa cimriga xagga dambuu ka eega war talow 60 ma la gaadhi 70 ma la maxaa hadhay isweydiiyaa noloshani waa wax iska yar maraad maxaa hadhay isweydiinaysa iyo maraad daalan tahayba waad mashquul tahay waayo inta kontonka laga sii yariya inta badan adduunkaaba mashquul lagu yihi laakiin markaasna wuxuunbu arka qofku waagiyo ku baryay iyo waqti cimrigiiyo tegay iyo meel cusuba uu marayo xilana noloshana si dhaba u fahmno dadkan aynu u nimi waa dad tani uun u muuqato dad sool wax ka dambeeya ma arkaan intooda badani tanaana qiimo u samaynaysa wax walbana tanuu ku miisaamaya iyana sidii oo kale inana u fikirin inaynu tan wax walba ku miisaano ee wax walo aynu qabanaynaaba ha noqdaan muxuu aakhiro ka jaraa muxuu ilaahay agtiisa gooyaa muxuu janno ka taraa muxuu naar ka gooyaa ma naar buu iga fogeynayaa mise waan ku dhacayaa haddaad u xidhxidhato inaad aakhiro badbaado anta alfaa'is haddii se aakhiro aada badbaadi weydo dunida wax kastoo aada dhaqdo khasaaraad ku sugantay ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu xaqayna waafajiyo kuwan xoogoodu khasaarina uu inaga yeelo aakhiriya adduunkoodaba kuwii rabbi u hagaajiyo in rabbi subxaana wa tacaala inaga yeelo sala allahuma cala nabiyi muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin